ما يماتي سدو ها waan imaaday aniga waa qofkii telefoonka kula soo hadlayay هاي نفديس سدو waxaan kamid ahay ganacsatada magaalada runtii aniga waxaan ahay in guryo badan leh sidaas oo tahay aniga wadanka waxaan ka ahay qariib oo waxaan rabaa inaan iskaga tago marka waxaan rabaa wadanka inaan iskaga tago dhulkan aad u jeedid waa 500 hektar qiimaha dhulkan aad u jeedidna waa sida taleefankaaga soo sheegay waa 34 milyan oo dollarka Mareykanka ah marka hadalka adigu ku furan yahay hadda kartaa waad mahadsan tahay maasha Allah qiimahana waad soo sheegtay maasha Allah dhulkana waa ku qancay waa dhul aad u qurux badan wuuna u qalmaa qiimahaas muhiimadeedu waxay ahayd inaan dhulka iibsado waana ku faraxsanahay inaan dhulkan maanta aniga ku guuleysto oo aan helo waxaan ka wada hadalaa waa inaan dhulka kala wareejisano adigana waraaqaha anigana lacagta waa hagaag yaa kula socda waa kaligay hadda kaliga xagee degan tahay magaalada waan deganahay laakiin aniga dalka dibadiisa aan ka imaaday okay magacaagana maada ii sheegin magaca walaal magacayga istaahil baa la dhahaa barasho wanaagsan barashada ani xataa magacaaga maada ii sheegin aniga ma hadalay dhahaa istaahil horta aniga waxayga waa isii aan ku siiyo ma jecli isku soo laalaabad iyo iska qabsi ma fahamtay iyo shala marqaati maana wada markaa dhulkayga gadaysa nin shaqadan hore ugu soo jirayna waa ahay ganacsatada magaalkan ka mid ahay waxaa weeye aniga wali qof aan war iskugu soo laalaabanay iyo waxaas ma jirto laakiin bil aadana la iska yahay ma fahamtay qofka iskugu soo laalaaban doona war noqotay adigana lama oga ma fahamtay iyo iska qabsi marka walaalay intay goor tahay haddii noocaas aad tahay fadlan iga raali noqo meesha aad iga joog hortaan ku weydiiyo inta aynaan baro waraaqadaha iyo aynaan kala wareegsanin ujeedka aad dhulkaaga u gadayso aad dhulkan waliba aad ku quruxda badan uga tagaysa iyo guryahaaga maxay tahay waa su'aal fiican walaal aniga nin waxa ahay
uma imaanin afaaro jacayl iyo inaan maanta kala hadlo marxaladaha jacaylka waxaan u imiday inaan dhulka ka iibsado iyo ganacsi inaan kala hadlo waraaqadaha gacanta ku hayso sidoo kalena aan kugu wareejiyo lacagtaada intaan lacagta iyo waxaan kala wareegsanin waraaqadaha sidee u aragtaa hadaa kugu soo socodsiiyay dhulka oo soo aragtid waxba kama qabo 100% sure waa aad iyo aad ugu heli doontaa aad waan jeclaystay dhulka quruxdiisa هيبا walaalkay ma sha Allah degdeg guriga uga soo baxay way soo kafay marka magaalada aad iska soo baxay iskiliga waxba ay sheegto halkaan ay baxaya magaalada aadayata ka war hayo walaalkay waad ogtahay inaan hawlo ganacsi ku jirno sida darteed mar walba inaan adiga ku waco ama aan kaalay dhaho way dib badan tahay meeshan waxa kugu ballamiyay arrin muhiim ah oo farxad leh dhulkan aad arkayso oo aad taqaanay inuu dhul dalxiis yahay meeshan waxa ay tahay meel amar imaado waa meel meeshan waa meel dalxiis loogu talagalay waxay la tahay inuu meel maalin la tahay waxa shalay ayuu soo way maaday adoo waliba wareersan laakiin hadda waxaan ku leeyahay dhulkan isla maalintaas ayaa ka helay qofkii lahaana aan ogaaday haddana waa la wareegay waraaqadaha waa runtii dhulkan wuxuu leeyahay dhul aad iyo aad u weyn موقع ورقدها صبلوغر إني هو ورقده حقيقة أخوان فيجها وحنا حقيقة ما يبصدان قفك يجي ما في مرة مقفرة ما يا ويل أيو أخا أبا يو فعنا لهين أنا كل جوج مكان هوش نسيحسي قص ولا الكي مقالين تكلسكم هلين ودقتها ولا الكيجا والدتنا أني يا واحد يجوا آمنين عادينا إنا بيقول بهرت له ما بحنا أنا ورقدها وصوص صحيح وأنا كار ما رتي تكتب نادي وأنا أخريي خليك المات وأنا الصبية walaalkay ani sidaada ma imanaysa inuu jacayl yahay oo iskala garan lahay mar walba aan aniga wax soo qoraayo waan maskaxdayda way degan tahay ka walba har laa okay ugu qalsoonaa soo tusaa dhulka quruxdiisa dhulkan inta soo socday bay ugu filan weynkiisa sayalataan madaxayga marba inaan meesha nimaad u tusinayaa kiisinayaa meesha meel aan maalinta بعدين ما طلع له رجلي حلا كسته مانع رأس كله ما أنت لقى بلابو واحد ولا حاجة لكن جاري أنا كاني أنا بحنا